السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال إذ لهانتينا باكسو دوادا وربحن كسابسان دبعيغا دمركا درينكا رقا يدريالكا والدكا. sheekadana waa mid aad u xiiso badan waxay ku bilaabanaysaa sidatan. maalin maalmaha ka mid ah ayaa aabe inantiisa ku casuumay inay ka soo wada casheeyaan hudheelada magaalada. wuxuu dabcan mudalabkii si hoose ugu amray in uu u keeno nuuc kasta oo cunnada ugu macaan uguna caraf badan, balse dabcan la sheegay inuu u soo raaciyo weel daboolan oo aan la ogaan karin waxa gudihiisa ku jira. miiskii ayaa la soo saaray cuntadii oo nuuc walba leh, taas oo midiba midda kale ka qurux badan tahay, kana dhadhan iyo caraf fiican tahay. hase ahaatee inantu waxay indhaha ku eysay keliya weelkan daboolan, waxayna damacday in ay ugu horraynba isaga daboolka ka qaado. aabbihii ayaa weydiiyey sababta ay u danaynayso inay ogaato waxa ku jira weelkan gaarka ah, islamarkaana isaga indha tirayso cunnooyinkan qaaliga ah ee horteeda yaalla. waxay ku jawaabtay, waxaan ogahay waxa weelkan ku jira in uu ka qaalisan yihiin waxa horteyda yaalla oo dhan, taasina ay tahay dabcan sababta loo soo qoriyey, ayay tiri gabadhu. aabbihii ayaa isaga oo dhoola caddaynaya ku jawaabay, waa taas sababta aan gabadhaydii xijaabka kuugu xidhay. waxaad ka qaalisan tahay kana maamuus badan tahay wax kasta oo bannaanka la keenay. xijaabku ma aha caburin, xijaabku waa ammaano iyo asturaad la asturayo shay mudan in la asturo oo aysan ahayn inuu arko qof mutaystay maahine. waxaan maqlay sheeko kale. daafaca kubadda cagta kooxda barcelona ee Gerard Piqué waxaa u dhaxday gabadh fanaanad ah oo saa'id isu qaawisa lagu magacaabo Shakira. waxaa dhacday in ciyaartoygaasi uu baryo dhexe u ololeeyey in gobolka Catalonia uu ka go'o Spain inteeda kale. hase ahaatee dhammaan taageerayaashii qaranka Spain ayaa ka xanaaqay, waxayna soo qaateen boodhar waaweyn oo ay ku soo qoreen kelmadda sida Shakira ragga oo dhan ayaa wada leh. dabeecadaha ragga waxaa ka mid ah oo aan ahayn wax la qariyo in inanku jecel yahay lahaasaawidda gabadh aan is asturin ama aan ka xishoon oo sheeko kastaba la wadi karta, waana xaqiiqi jirta marka la fiiriyo dabeecado badan oo la arkay, dhacdooyin badan oo la arkay, tusaalooyin fara badan oo dhammaantood xaqiiqdooda la ogaaday ama si hoose loo dareemay. marka la fiiriyo xaqiiqooyinka ku gadaaman muhiimadda ay leedahay xijaabka in habluhu is asturaan, waxay soo koobaysaa wax walba oo dadan ama hagoogan ama asturan ama daboolan, siday dhadhan, dareen iyo sidoo kale dabci gaara u leeyihiin. wax kasta oo dabcan aan asturnayn oo dibadda yaalana ay uga nuxur iyo sidoo kale dabcan dareen wanaagsan yihiin. sheekada tan waxay soo koobaysaa xaqiiqooyin badan, waxaana ay leedahay dabcan dabeecadaha ragga waxaa ka mid ah oo aan ahayn wax la qariyo in ninkuu jecel yahay lahaasaawidda gabadh aan iska asturin ama aan ka xishoon oo sheeko kastaba la wadi karta, laakiin wuxuu jecel yahay, waan ku celinayaaye, nin kasta wuxuu jecel yahay inuu guursado gabadh asturan. waa xaqiiq jirta, waana dabciga ragga intooda badani ay ka siman yihiin. raggu inta badan lama falgalaan haweenka ay yaqaanaan, haweenka ay dabcan wax badan wadaagaan, haweenka ay si dhow iyo si guud iyo si gaarba u arkaan. waxaase ay ka jecel yihiin inay la falgalaan oo ay u dhowaadaan oo ay la haasaawaan oo ay wax wadaagaan. qofka ay isleeyihiin waxoogaa badan ayaad ka jeclaan lahayd inaad ka ogaato ama aad ka salgaarto xaqiiqda. sheekada tan waxaan idiin rajaynaynaa inaad sii faafin doontaan si ay dad badan u gaarto, wax badanna uga fahmaan xaqiiqooyinka jira iyo sidoo kale sida ay tahay in dabcigan bulshada dhexdeeda ka noqday joogtada loo bilaabi lahaa sidii looga tanaasuli lahaa ama loo horjoogsan lahaa inuu gaaro meesha hadda uu joogo ka sarraysa.